الشيخ عمر فاروق إلهي سبحانه وتعالى هون حرسته وحان ويدي سؤال su-aashaas oo runtii aniga xilligaas si iigu muuqanaysay haddana sheekhu inta uusan ka jawaabin su-aashii waxa uu isiiyey jawaab runtii aada iyo aada u qiimo badan oo aada mooddo inay la xidhiidho dhacdada tan ka dhacday maanta garowe ee sheekh cabdulqaadir lagu dilay raxmatullaahi calayhi sheekhuna wuxuu ku jawaabay sida tan أشرنا صحابة وقت جاي الله يدين خروج على الحكام وانتقل يا خوارج والله ما قلتك تا خوارج العلماء والأمراء ذاتك أهل الدين الدين تحضر سنة حملة الشريعة وهم دولة شرعية ودروسته هي فتوى هي لغا قاطو هي dadka marka umarada ee talinaya gambarka ku fadhiya xukunka haya labadaas ay khawaarij la dagaalantaa marka dambana umada oo dhan ay la dagaalamaan horta aragtida waa ka digaya oo admoodu inay baryahan dambe soo noolaatay oo aragtida khawaarij loo yaqiin waagii hore maantana takfiir loo yaqaan takfiir iyo khawaarij in asal khawaarij la dhihi jiray haddana takfiir loo yaqaan maxaa u sababa waxaa u sababa waagii khawaarij loo yaqiin dowla islaamaa jirtay oo isagoo sayd cali ilaahi raalliha ka noqdo الرابع الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدين تنمي حكمك كان حشو يزيد وعما مليسي إنك أفرادوها علي أوجوري منك صبحين علي بيتغال قبقالين هذا لك لدوان بي علي كشيغير مركا خوارج باللغرين جري ما دام إمام المسلمين أوجري ما سوى الخوارج الله ورنيني حكم إسلامي هذا الجري حكم إسلامي باجري كدوادت أركت قرعة وتكفير ودك الدارين هيا وحايد قبلا شمتي شريف لما شمتي عجل يا شريف عبد النور أوضو بين الدهورة أو كتو بين ميرودي أو من يعلم به كفو عن من قال لا إله إلا الله شريطنا مرة هذا وحال إلى كفو عمن قال لا إله إلا الله ورقفك لا إله إلا الله يرى فراك قال وكرر توما ويان عجل به حضر وإن أركتنا قرآن وهذا التكفير كذلك يقال أولا خوارج لأورنجري أركتها صوت توبة العلماء والأمراء علماء إيوه ذاتك حكم كهيا لما شيء أركتها توبة لما شيء ولما هدان نساء أمرها من الجولة حتى دول الكفار دول كقالوا dadka iyagu yaqaano waxay diin ahaan ku aftirsanayaan dadka wada iyo dadka maamulka haya marka aragtida ka soo horjeeda alculamaa walumaraa oo haddeer takfiir loo yaqaan taa waa inayan baahin hadday taa baahido oo sii socoto waa iyagaa takfiirka laga awood yeeshaan waxa ay la soo socdaan waa la yaqaan gumaad wey in ay shacabka iyagoo ka bilaabaya alculamaa walumaraa inay gumaadaan ayaa arrinkaa ka dhalanaysa sidaa daraaddeed
bilaabay kulanka kan oo ahaa diinu nasiixa qiila yaa rasuula allahi liman qaala lilahi walikitaabihi walirasuulihi waliaimati lmuslimiina wacaammatihim xadiidka waa in lagu dhaqmo oo la cuskado oo laysu naseexeeyo oo dadka wanaagga la faro oo diinta la faro oo alamru bilmacruuf annahyu cani ilmunkar inay shaqeeyaan wey